السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا دين سلام يا laba shay baan rabaa inaan ku baraarujiyo waxaan nahay aqoon-yahaneyntii dalka badanaana dadku waxay yiraahdaan aqoontu dhibkay xalisaa ama fursad bay soo kordhisaa marka jaanisyada amniga iyo farangelinta siyaasadda ayaa lafteeda aqoon-yahanada haysto laakiin waxaan rabaa inaan diro arrin aan ka fursan waayay mahma waxa jirto oo dhaah nin u dhahayo Dr. Ahmed Zubayl marka anaga iyagu isku mid baan dabcan ده عربض ما صار وحام صار مال aqoontiin oo leenay PhD master okay الغرب ليسوا عباقرة رجال بيتكم ما هن عبقريين وصومالي وكله okay ما هن عبقريين أنا قلنا منين ونحن لسنا أغبياء أنا قلنا الدقامة منين مركب نبكوا حقوق كجرا okay أيجهم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح قف كذا فاشل كأي جرب قلان إلا وجولسته ونحن نحارب الناجح حتى يفشل أنا قلنا وحنا لا تقلنا قف كجولستي إلا وفشلمه ولا ليه على مستفى عنه في الصدى مركز أريما بدن باكرته أوكي نكلو بورس كم ذا وحوليه هاي وأنا قاعد نباتوين كناست وحنو دوننا إن هرمر جاره ماشي نمرعينه وحول وحكستو فكر كاغا كنترارا مروال بعدد فيلم جعل دعوته ده مستقبل كاغا كاون بهجيه هدي دعوته فيلم دجال يفشل فيلم ده خيامة ده قبلها نجي ويلش النادي ده يرادو دعوتان وحكستو كنترول جريه نفط هذا أو يبدن تاي anything that consume your lives كاس أيها كنترولا مستقبل كاغا أوكي مركا هل كاسنا وحوليه إمام الشافعي ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس أظهر مر دون يو وضدي أن راعين ده صورة قل ماهن وانيري دون بنكو وضيا بنانكا مركا لبضا شيء دون ينانكا الله حويان بل نبكا أنو بدلو أو حوغا فرصة اوكي هذا دولتنا waxay soo saxeetay heshiisyo dhibaatada aan saawlay waxa weyn dawlad kasta wasiir markuu yimaado wasiirka warqadii uu tuuraya marka bal inay wax isbedel yimaadaan maadaama ay xogaa quality raadinayaan aanu ka faa'iideysano heshiisyadan la soo galay aan raadinno in tiknoolajiyada Soomaaliya u baahan tahay expertiga khubarada Soomaaliya u baahan yihiin inaanu dibadda ka keensanno si at least aanu yaraano waxyaalaha naloo soo dhoofiyo sanada caanalidooga ugu badan ugu yar الله دي بان هسنا كروس بريدنج بالا سمينيا بس كليا دلان روج يعني شهودي xoolaha soo laga qaaday kan lagu shubo walaalo yaa sameyn kara adiga ganacsiga sameyn kara aniga aqoon-yahankayga soo fulaysa dawladdu waxay kugu caawinaysaa heshiiskii okay marka janiska inaan ka yara faa'iideysano oo for example transfer technology and expert dibka Soomaaliya waa faqri shaqo la'aan keentay sinaan la'aan ka dhalatay oo instability keenay markii laga tago faragelinta midda kale janis kana laga faa'iideysto dawladdan lafteedu ay ka faa'iideysto oo maadaama 4.5 kan iyo dhibkan inta iska dhaafto dad quality ay keento haday keentana lagu taageero taasaan qabaa marka midda koobaad waxa weeyaan heshiisyada dawladdu ay soo gashay hadda imaaraadka kale waa muhiim suuqanaga caalamka okay tan suuq bariga Afrika oo isku dayo kale waa muhiim waxaan aad u jeclaan lahaa in la si taageero Eritrea Ethiopia marka bal inaan u helo kalluumaystadana halka ku rafaadsan ma helaan kalluunkooda in la qaato kalluunka waa la waardiyeynaya inta la yiraahdo burcadbadeed ayaa la qaataa oo la iibiyaa markay ay u qaadaan dibadda geeyaan waxa la dhahaa quality male dawladda aqoon-yahanka iyo ganacsatada haday iskaashadaan wallahi dhibkan aan ku jiro oo adiga ku haysta aniga hees suuq ka baxaya tan labaadan doonayna ka hadlo mar doonayna dheereeyo waa dawladda iyo xogaa iyo waliba shacabka xataa shirkadaha waxbay ka qabteen حقا أبارك الحمد لله أو ضمن بدن بعدنا أنا قلنا دولة لهن لكن وحن ميانا وحبل لقي قبل كرين أقوان تمركي اللي يرادو قف كستو وحسود جستا واحد ركز سنين عرب ولا سود جيو وحن قرنا يادات سود جستا سليد وهذا وصوماليا عادي وقف بحسها سكرتا وحل عقوين ماهن أوكي لأن يرادو حاجة تبيرها صبرتي علفك صارة حولها نجو لا دي صوماليا السوق يكبحسها وربل اسكت ضيا إن علفك بيرتان ومالمو maalmo way okay taas waa qof walba sameyn kara in loo danad intay yaani la waayay laha iyo ariganagi inaan badbaadino xogaa geeligu resilience uu leeyahay midda kale dawladda iyo rugta ganacsiga aqoon-yahanadu bal intay shir sameystaan Soomaaliya laba shay baa jirto ugu dhib badan okay aan ka bixin abaarta okay in qof kasto wax soo dhoofiyo 10 hektar u beero galeyda waxa laga keenay Ethiopia ilaahay kugu dhaarshe waxaan cunay moos waxaan soo dhigay Facebook-ayga carruurmii ku ciyaaray imisaal iibiya dadka ugu badnaa waxay ahaayeen 5,000 ilaa 4,000 bay u dhaxaysay qaar 3,000 2,000 yiri way yareed aad bay u yareed in xamar uu ka joogo 5,000 mooska
galeyda Ethiopia naloo keena qofku hadduu dhiig leeyahay dadkii hore intaas kale ku ooyi jireen yani damiir baan jirin anigoo yar oo ceel jaalle joognaa waxaan naloo diray inaan xidhno bacad celinta marka waxaanu henay bahalkan yaroo tiitiinka ayaan gelinaynay meesha marka heesta nashiida idinku hadda nashiida tiraadeen waagaas wadaniyad bay ahayd ayaanu qaadaynay wallahi waanu wada ooyeynay maxaan ooyeynaa ree afgooya ree janaale inaysan gaarin bacadkan gabar baa igu xigto marka intay qaada tiitiinka intay qaada glofkii aan siin intay iska saartay intay qaada ay gelinaysaa ay marka mid kale ay gelinaysaa way duugaysaa gacmihii oo dhan baa dhiig noqday yani dalkeeda wax weyn la wax weyn ma qaadinin dadweynaha hal qura hadhuub ku wada cunteeya hareerahooda maal oo hantida dhulkooda dhoor war bal miyaanan dhiig lahayn galey baa Ethiopia laga keenay adigoo Soomaali adduunka quudin jiray Ethiopia markii aan isleenaynay way ku fashilmeen abaarta anaguna waan ku guuleysanay laakiin waxay nooga reeyeen alliance-ga aanu cadaawada Ethiopia kama wado waana ka soo horjeedaa laakiin waxaan ka wada tusaalan ku siinayaa okay marka waxa weeyaan faqrigan jira waxa looga bixi karaa bal at least ganacsatada inay 10 hektar beeraan dhibaatadan aan ku jirno dadkii baa toos u dhimanaya qof Soomaali oo walaalka baa dhimanaya dadkan tuugsanaya ma ahan inay xun yihiin anaga yeelay adiga yeelay bal at least aqoontanada khubaro waxa joorta beeraha markii hore halkii hektar waxa ka soo bixi jiray 2 tan iyo bar hadda waxa ana ku balan qaadaya waxa ka soo baxay ugu yar 9 hektar baa ka soo baxay aqoon-yahanna ku joogo calafkii baa yaala xoolihii kama dhimanayaan waradeer waxaan isku dayno nin walba isku dayo okay mid kale awoodda la saaray waxa weeyaan dawladda laga rabo iyo ganacsatada waa kalluumaysiga beeraha tan ugu dambaysa aan doonayo inaan ka hadlo waxa weeyaan mucaarad kasto iyo muxaafad kasto nahay waxa naga dhaxeeyo waa inay jiraan arrimaha dibadda markay tahay waa in mid laga noqdo anigu farmaajo waan ka soo horjeeday markii hore laakiin arrimaha dibadda si kastaan ula jiray waxba ma noqon karo heshiiskan la soo galay ma fulin karo haddii aan la sameynin dawladuna yeenan af ka dhigin maanta ayaga fursad haysta maanta ayaa daabka haysta waa la soo socday meel fiican baa la soo gaaray ciidankanagu maanta tay leeyihiin haddii anaga daacad laga helo dhinac walbaba marka waxaan ay sheegeen heshiisyadaas siday u fuli lahaayeen ilaah uga baqaan dadkan in yar buu qof walba noolaanayaa arrimahaas in la fuliyo oo shacabkan faqriga ay ka baxaan shaqo la'aanta ay ka baxaan ha isku dayaan intay joogaan haddii laakiin ay noqoto in qof walba intuu joogo inuu guryo dhisto wax samaysto beri waad dhiman kartaa kansar baa kugu dhici kara dhawaata beri damar waxaad leedahay dee Allah dan waagii waxa qaban lahaa waxaan ugu dambeysinayaa oo aad muhiim u ah oo ila qabaan aqoon-yahanada arrintan heebsooc ah oo alxamdulillah hadda sii dhamaanayso oo dhalinyarada xaggeeda ka sii dhamaanayso in odayaashan dagaalada qabiilka na geliya oo shaqada ay qabtaan qaaraan iyo waxa inaan warkooda la yeelin laguna daro iscafiska inaan dhahno dadkii aanu heeb sooci jiray oo walaalahanaga inaan dhahno hana la cafiyo qof Soomaali oo kula mid ah ka aqli badan ka quruxsan inaad waxbaan heeb soocayaa tiraado waa ceeb haddana markaan dibadda jiro aan guursano Jamaicanka waliba gaala aan naqal lahayn daroogisto Soomaaliya markii la jooga xalaal uma ahan hagan xalaal waxay ugu tahay xalaal marka waa dhaqan aad u xun dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinayaa inay waxaas ka takhalusaan waan u mahad celinayaa fiska maxaad magacaad waxaan u mahad celinayaa farxiya fiska iyo wiilka iskuursaday oo ay ka horeysay nin walaalkanaga lagu dilay Axmed Dawle oo shahiid ahaa marka waxaan dhihi lahaa dadka aniga iyo kuwa kale ila mid ah in la gaaro qofkii la arko heebsooc yani si public u soo bandhigaya hebel waxa loogu diiday noocaas oo xataa la gaarsiyo qofka in la dilo si dadkanagu ay ugu noolaadaan yani si sinaana intaas ayaan dhihi lahaa waxaan leeyahay guul iyo gobonimo thank you